بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوادا وراركا جنالكا سومالي نيوز 724 قضبادا وراركا جنالكا سومالي نيوز 724 وضمانتا ugu weyn waxa kamid ah madaxda dawladaha xubnaha ka ay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo xilligan hal shuruud hordhigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo sii dhameystiro heshiiskii dhawaan ay wada gaareen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cabdiwali Gaas oo shaaciyay arrin uu meesha ka saaray heshiiska Villa Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hor yimid dhowr qodob oo kamid ah heshiiskii doorashada ee dhawaan la gaaray Mareykanka oo sheegay in uu kordhinayo duqeymaha uu ka geysto gobolada dalka iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka oo mar kale weerar afka ku qaaday Ilhaan Cumar qodobadaas ayaa ku daawan doontaan warka channelka Somali News 724 fadlan daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay channelka soo booqato hanaga ilaawin subscribe share like gambalka furasi aad u rukumadid channelka Somali News 724 haddii aan ku bilaabo waxa wali markaa kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ay Muqdisho uga socdaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kulamadan ayaa waxa si gaar ah looga hadlayaa dhismaha guddiga doorashada ee heer federaal iyo waliba heer dawlad goboleed dhismaha guddiga xalinta khilaafaadka jaangoynta waqtiga doorashada iyo waajibaadka gudiyada la magacaabayo saacadihii la soo dhaafay kulamada ka dhacay ayaa waxa markaasi xogaha la helayo waxa ay sheegayaan in aad markaasi looga doodayo arrimaha la xiriira magacaabista guddiga doorashada heer federaal iyo waliba heer dawlad goboleed sidoo kale goobta markaasi labaad oo lagu qabanayo doorashada baarlamaanka marka laga reebo caasimadda maamul goboleedyada dalka wararka la helayo ee markaasi horodhaca ayaa soo baxaya waxa ay sheegayaan in madaxdu ay markaasi isku raaceen in magacaabista guddiga saddexda ahi kuwaas oo ay markaa ka shaqaynaya arrimaha doorashooyinka dalka madaxda dawlad goboleedyada ayaa dib ugu laaban doona deegaanadooda si ay markaasi la talashiyo ula soo sameeyaan bulshada xildhibaanada maamulada ay markaasi u soo magacaabayaan xubnaha ee dhankooda ahi ee markaa ka socda guddiga doorashooyinka ee markaasi ku matalaya dawlad goboleedyada dalka ha yeeshee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilligan waxa uu madaxda dawlad goboleedyada dalka hordhigay in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan loo magacaabo xilligan ama doorashada dadban ee sida lagu heshiiyey dhowaanba Cabdi Cali Raage oo xilligan markaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhinac mar hore u magacaabay dhinaca la taliyaha arrimaha doorashada Cabdi Cali Raage ayaa xilligan waxa la rumaysan yahay inuu sidoo kale qayb ka soo ahaa hanaankii hore ee sanadkii 2016 ee Xasan Sheekh Maxamuud ay markaa madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ee dalka ay ku heshiiyeen waxyaabaha xilligan ay madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay ka didsan yihiin ayaa waxa kamid ah in khilaaf adag uu xilligan u dhaxeeyo Cabdi Cali Raage oo ah ninka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magacaaban dhinaca arrimaha doorashooyinka dalka iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhinacyada markaasi xilligan markaasi aanu soo xiganayno ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in waxyaabo badan aanu xilligan markaasi suurtagal ahayn in ninkaasi loo magacaabo saacadihii ugu dambeeyay hadal hayn badan ayaa markaasi ka dhalatay kulamada xilligan Villa Soomaaliya uga soconaya madaxda dalka iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jira kuwaas oo xilligan si adaga markaa uga arrinsanayo arrimo ay ka mid yihiin nooca doorashada dalka xilliga markaasi la gudagalayo arrimaha doorashada iyo sidoo kale waajibaadka xilligan guddiga ee horyaala qodobo badan ayaa markaasi la soo warinaya in dhinacyadu ay markaasi sidoo kale isla afgarteen oo ilaa iyo hadda 8 qodob oo ah waajibaadka xilligan gudiyada laga doonayo gudiyada ayaa sidoo kale waxa markaasi la hordhigi doonaa awaamiir culus oo markaasi ugu horeyso in laga fogaado musuqmaasuq keeni kara doorashada xilligan dadban iyo sidoo kale in 101 ergo ay noqdaan ergooyinkii hore ee markaasi dalka xilligan oo inta badan markaasi beesha caalamka ay xilligan ka didsan tahay doorashada dadban arrimaha kale ee markaasi gudiyadan la hordhigay ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah in dhinacyadu ay markaasi isku afgarteen in aanu markaasi xilligan laga fogaado wax walba oo markaasi qalqal gelin kara arrimaha doorashada dalka sidoo kalena beesha caalamka ay noqon doonto kuwa korjeegteen doona arrimaha doorashada waxaana markaasi gudiyada la soo magacaabayo laga doonayaa inay noqdaan kuwa ka fogaado nin jeclaysi iyo sidoo kale wax walba oo keeni kara aqalalaaso siyaasadeed oo markaasi beesha caalamka ay mar kale ka digato arrimaha Soomaaliya dhinaca kalena taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano Africom ayaa ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska la saarayo ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika Africom ayaa waxa ay sheegeen in markaasi Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada
soomaaliya iyo weliba kuwa amisom iyo danaha maraykanka intaba africom ayaa shaacisay in ay la socdaan in ay markaasi kordheen weerarada tooska iyo weliba kuwa loo adeegsado gaadiidka laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa isla markaana ay ka digtoonaadaan al-shabaab ayaa markaasi gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa waxa ay ku weerareen deegaanka jannaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose waxaana ku geeriyooday askar ka tirsan ciidamada dawladda halka uu ku dhaawacmayna askari ka tirsan ciidamada maraykanka ee taageerada siiya ciidamada dawladda maraykanka ayaa dhowr jeer waxa uu markaasi duqaymo dhinaca cirka ay ka fuliyeen deegaanno ka tirsan gobollada dalka waxa uu sheegay in duqayntaasi ay ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab walow mararka qaar dad shacaba ay markaa ku waxyeeleeyaan maraykanka ayaa sidoo kale xilligan waxa uu markaasi sheegay in bartilmaamoodkooda ugu weyn uu yahay saraakiisha al-shabaab ee dhinaca markaasi weerarada u qaabilsan waxyaabaha kale ee xilligan markaasi maraykanka uu ballan qaaday ayaa waxa uu sheegay in gobollada dalka qaybaha ay ku xooggan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ay yihiin kuwo inta badan oo xilligan macluumaad fara badan uu ka hayo sidoo kalena ay jiraan dadka deegaanadaasi oo si dhowa ula shaqeeya taliska maraykanka ee africom ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cabdiweli maxamed cali gaas ayaa markii ugu horraysay ka hadlay sababta keentay in heshiis 15 qodob ka kooban ay wada gaaraan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo maamullada dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maamul goboleedyada dalka ayaa 17 sebtembar heshiis ku gaaray villa soomaaliya kaas oo xalka madambeysa looga gaaray khilaafkii baahsanaa ee ka dhashay qabsoomidda doorashada madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isaga oo markaasi qaba in sababtii ugu weyneed ee heshiiskaasi loo gaaray ay ahayd in laga baaqsado dib u dhac ku yimaada qabsoomidda doorashada gaas ayaa qaba in heshiiskaasi uusan waxba ka duwanayn nidaamkii doorashada ee sannadkii 2016 waxa uuna hoosta ka xariiqay in heshiiskaasi uu meesha ka saarayo muddo kororsi dheer ee labada dhinac heshiiskaasi gaaray si daacada ay markaasi ugu wada shaqeeyaan fulinta sababta hadda loo gaaray heshiiska noocan ahi oo markaasi dib u laabanaya midkii 2016 wax yar un ka dib markaa laga beddelay oo aan badnayn sida tirada ergada oo markaa la kordhiyey oo keliya waxa ay tahay sababta aan anigu markaasi sidaasi ugu fahansanahay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto ayuu yidhi gaas hadalka cabdiweli gaas ayaa imaanaya xilli uu soo baxayo madmadow ah ku jira heshiiska dhowaan lagu gaaray villa soomaaliya maadaama uusan si dhaba u caddayn xilliga lasoo dooranayo baarlamaanka iyo muddada ay soconayso doorashada dalka dhinaca kalena waxaa markaasi arrintan isagoo dhinaciisa ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ka hadlay heshiiska dhowaan markaasi laga gaaray khilaafkii baahsanaa ee doorashada ee markaa lagu gaaray villa soomaaliya xasan ayaana dul istaagay arrimo markaasi uu sheegay inuu dib u dhac u keenayaan oo ay ku jiraan heshiiskaasi kaasi oo ku qatamo xilliga ay qabsoomayso doorashada oo si rasmi aan loo caddayn sidoo kale waxa uu sheegay inuusan jirin hab cadah oo markaasi lagu sheegay heshiiskaasi oo loo soo xulanayo baarlamaanka iyo weliba qaabka ay markaasi u kala gudbayaan xildhibaanada xasan ayaana qaba madmadowga ugu badan inuu ku jira heshiiska lagu gaaray villa soomaaliya u baahan in si cada markaasi lagu bayaaniyo qodobada sida wadajirka ay u soo saareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waxa uuna soo jeediyey in shir kale ay markaa isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada si waxyaabaha yaryar ee mugdiga ku jira loo caddeeyo xilligan ugu dambayntii waxa uu markaasi ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in laga shaqeeyo qaabkii uu u dhaqangeli lahaa heshiiskaasi iyada oo markaasi dib u hagaajinna lagu samaynayo xilli uu meel mariyey baarlamaanka soomaaliya waxaana markaasi xilligan hadalka madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud uu ku soo aadayaa iyadoo inta badan ay xilligan markaasi socdaan arrimo badan oo markaasi heshiiskaasi dib loogu noqonayo ugu dambayntiina madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa mar kale weerar afka ku qaaday ilhaan cumar oo ka tirsan koongareska maraykanka waxa uuna sheegay in ilhaan ay tahay qof musuq badan isla markaana warbixinnadeedu markaasi uu la socdo muddo markaasi 2 sano ahi waxaa markaasi ka qaldan ilhaan cumar waxaan rajaynayaa in hawshan oo u soo faragelin doono xeeralyaha guud waxaana markaasi akhrinayay warbixinteeda muddo 2 sano ah oo markaa ku saabsanay sida ay musuq u badan tahay miyaad rumaysan tahay sidaasi weliba ayay markaasi inoogu sheegaysaa sida dal la maamulo waxa ay markaasi ay samaysay qofkii ay reer Minnesota doorteen maxaa markaasi baas idinku markaa qaldan dad yahow ayuu yidhi
Trump oo markaasi qoraal kooban bartiisa Twitterka markaasi soo dhigay dhanka kale Trump waxa uu markaasi musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyay in gobolka Minnesota markaasi uu doonayo in uu ka dhigo xero qaxooti waxa uu sidoo kale markaasi sheegay in Biden uu doonayo in meesha markaasi ka saaro xayiraadda dhanka safarka ah ee lagu soo rogay muwaadiniinta dalalka ee ay taagan yihiin dagaalada hadalkan ayaa waxa markaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ay markaasi sheegay xilli uu muddo kadib oo booqasho ku tagay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka taas oo qayb ka ah ololihiisa doorashada kadib doodii kululeyd ee shalay dhex martay isaga iyo waliba musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Joe Biden ودهنا داود الانتصارين كسو جبجبين وركات كداونيسين جنالك سومالي نيوز 724 تاني يقولون كنا دم وحنا دي لنا هاي نبت جليو أمانة الله ودنكم محسنين داود شدا وركات جنالك سومالي نيوز 724 فضلا داود هدي أي تامر كوكو رسيا جنالك صوبة قطع نجي لاون سبسكرايب شير لايك قبل الكفر رسيا دركم جنالك سومالي نيوز 724 نبت جليو أمانة الله